أدو ما صرتي وزيرك وزارة دانية ساعة على شيء أفضل تسعة قدام بي وحابرها بالشدة أما الشبكة وركها مجموعة عالمية لوفها فيه قرار موجودية إن كمباني شركات قارة مقعد كويا لذلك أمباستور باشي كل إعلام سنين سمعنا يلتي كمباني قارة صومريو مع القشية مركو شركة السمحية قول ما صرت بسم الله الرحمن الرحيم وتشركة ده وحلا إلى هذا Somaliland Investment Company SIC waxay ku taala xarunta shirkadaha maaliyadda ee Dubai ama Dubai International Financial Center ay ku taala shirkadda waxa la dawladda ay iska leh waxay leedahay guddi bay leedahay laba qof ka kooban iminka طبعا دي شركات marka la diiwaan gelinayo walaal magaciyo gudbiso guddi labada qof ee guddida ku jira waa aniga iyo safiirka baashi ujeedada aynu ka leenahay shirkadaasi waxa weeye waa laba innaka maadaama aan leena ictiraafsanayn waxa aad iyo aad u adag in wadankeena la maal gashado lacag la keeno marka shirkaddan waxay naga caawinaysaa in cid kasto aynu doonayno inuu heshiis maalgashi la gallo aynu kula gallo saaxad caalami ah ay inoo suurtagelinaysaa waxay kaloo inoo suurtagelinaysaa in dadka lacagta lagu maalgashanayo in shirkadda ay soo marto oo saa wadanka ay ku timaado waxay kaloo inoo suurtagelinaysaa in laftigeenu haddaynu lacag haysanino doonayno maalgashano inaynu maalgashano marka carqaladaha la xiriira amba ku xeeran ictiraaf la'aanta ee maalgashiga iyo lacagta imaatinkeeda iyo saarista bixinteeda ay shirkadu inaga caawinaysaa halka ugu horeysa inaga caawinaysaa waxa weeye waa shirkadda DB World heshiisyada la leenahay ee iskaashi sidii aynu heli lahayn dee maxaan idhaahdaa maalka aan doonayno ku ballaarino dekedeena saynu xisaabtami lahayn bay inoo fudud taas ugu soo horeysa oo inoo fududeynaysa laakiin shirkadu waxay u diiwaan gashan tahay inay maal gashato meelo badan beeraha korontada warshadaha waxa soo marka runtii waa wax inoo soo biiray Somaliland ahaan oo wax weyn ka taraya carqaladaha ay mataqaanid dhibaatooyinka ay ictiraaf la'aanta ay nagu hayso oo u baahan runtii inuu deen xusno وزير marka laga imaado in Soomaaliya faa'iido u tahay waxa dadka Soomaaliya isku diinayaan adigu waxa wasiirka nabadgelyada baashana waa safiirka Soomaaliya marad ninka saddexaad usna xog waxa jira magac lagu sheegay Cabdiraxmaan Usna xogan iliya tamam sheegi waxa isku diinaya si waxana ay noqoto wax cadaan oo transfer loo dogyahay waxa shaki keen karaan adiga dawladda iyo baasha dawladda maxaa mashruuc ugu jira maxaa mashruuc loo waayay oo dad kale madax banaan oo maalgashiga aqoon leh iyadoo la ognahay in madaxweyne Muuse Biixi uu magacaabay wasiirka maalgashiga Soomaaliland mashaqadii wasaaradda loo wareegtay dadka horta waxa keenay aniga magacayga iyo magaca baashaba waa mashruuc dee la xiriiro oo ku xiran maalgashiga dekedda DB World oo halkaas uu magacu ka yimid inanka Cabdiraxmaan waa xoghaynta ku qorayaan dee filayaan shirkadu xoghayn beeleeda iyo guddi beeleeda shirkad waliba ay leedahay xisaabteeda shirkadda xisaabteeda waxa shaqo kale oo la soconayo maamulaya waa wasaaradda maaliyadda saasa ku qoran markii dee la asaasay shirkadda gebigeedu waxay soo baxdayba oo dee la siiyay shahaadadii waa 2 casho ka hor haruumidii jirin haruudii shahaado ma haysan laakiin waxay process soo socda process buu muddo soo socday waayo sida shirkad uga diiwaan gelin karto xarunta maaliyadda ee Dubai International ka waa arin aad iyo aad u adag oo u baahan shuruudo fara badan oo buuxiso marka wax markii iska soo booday maahay wax weey wax muddo soo socday weey maalit saan ku sheegayna runtii waxa dee maamulka wixii hantiyada shirkadda soo gala waxba dee ma laha laakiin wixii hantiyada soo gala shirkadda maamulkeeda waxa iska leh
wasaaradda maaliyadda marka anagu wasaaradda maaliyadda maanan doorkeedii maanan qaadanin waana dee bilow madaxweynuhu beritaba wuxuu u magacaabi karaa 2 qof oo kale wuxuu diidayaa ma jiraan laakiin marka hore sida shirkadu u soo baxdo dawin magaciisa la gudbiyo ka magaciisa waxay ka yimaadeen waa maadaama shirkadu ay ku lahayd mashruucii maalgashiga dekada halkaas waan ka soo galano oo furmaayo laakiin waxaan ogahay in labadeena baan isla garanay in dub loo anba qaado wada hadalkii codsina wuu jiray ka yimi xagga maartay xagga dawladda Soomaaliya in marka hore loo sameeyo furitaan maaha wada hadalkii ma laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyeen ay Djibouti ka sameeyaan بريجي هربودي وجايو لبدا مدحين مربي سوقي مادين جيبوتي كوسابسن arrinkan dabana iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wada hadal ku deeyo bilaamaya waxaanu ka bilaamaya de saaxad caalami ayuu ka bilaami doonaa insha Allah wadanka Switzerland baa iminka muujiyay diyaar inuu yahay inuu arrinka ay naga caawiyo qayb ka qaato inagu in soo dhaweynina ay hubin qolada kale soo dhaweyso way mudana wasiireen Somaliland dooy ku dabeeyo waxa jiray dhalinyaro ka baxaya kuwaasi oo la leeyahay ciidan bay ka noqonayaan qadar maxaad kala socotaa wasaaradda arrimaha dibadda warka anigu runtii wuu soo gaaray mara Somaliland oo kaliya ma hay'ad laftigeeda Soomaaliya waa saas oo kale dad bay ka qoranayaan baaleeri oo loo qoranayo askar arrinkaas runtii waan maqlay ma hubaynu yahay wax de rasmi dawlad ahaan arrinka mara wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa iga sii xogagaalsan ma filayo laakiin waa warjiraan maqlay وزير سؤال مقعد وخالد فرداني وحن كسب التلفزيون كجوجو دولة سويسرلاند شاكتي إن هذا لازم كسوق جلسة دولة تركيا إنك هدي بالي ومسا أي محل هذا أي ولا هذا لازم كبل عام يعني ما لبده مثلا سكوار كين جيبوتي سير تركيا كم حد كنتي ارتدن تورك حاجة جوابه وأنا سامر كروان شيء بقولي من مديسنا يعني كلن كجيبوتي أرنكا تركيا درنتي جوجلون بينو دقي شرينون يبغى هذا الكقيب كما يحين لكن تركيا موقف كود رنتي دو عادية يبغى حوي مواد لو كنا وين هذين بابا والسومالوين مركا أرن الأسقوها هيو هذا عيد أرن كدرف كتاعي ترى حالنا كمان نقول كرتو وأرن ده رنتي ما تبحنو بهناي عدين لحد حد دي أبغى ندكو كلصون هاي أي نو بهناي لكن وجم هاد علينا dadalkii hore de sameeyeen wasiir waxa ka socda Star TV magacaygu Maxamed Tariq su'aashadana waxay daba socotaa shirkaddan cusub Somaliland Investment Company adduun gelisay magaca uu ku jiro safiirku ku jiro Somaliland waxa la xeer nidaamiye ma u eegteen xeer nidaamiyaha Somaliland markay shirkadda duwan gelisay xeerka nidaamka Somaliland dawlad xeer badan baynu leenahay أنا رنتي موجي مثل حريرة شركة ذا إنه كسر مثلاً كرود دبدي لكن أتأرن كان وحى رنتي ده نلسمي أو هرمود كها الشركة ذا الله يراه أو ده إنه كان قبسنا مركا حبسمينتي ذا يسمينتي وحكهوري من أيامها بالشرع عالم كان بكهوري من أيدي شرعيين. حركة نظام كالسوماليلاند يلا بلوك كوبي سديته وحوشاق يعني مركا شركات أي دولة ولا هاي للديوان قلينيو إن لهوس كيو وسارة أي خصيصو أما سكو هبو إذن كان يا إدي دورتي إن كمبانيين عصب أتخلنا قطعان بور أوف دايركتورز at the same time نا متى وسارة أما س تيكو هبونايد إن لهوس كيو وسارة